السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تغير فيسبوك وأنا والله السلام دمانتين ملك السود شوكتان بلاد الله صوقة إن شاء الله تعالى وقت يرو قاوان بالله يستا خولا لوجرا مركا ما دام ندوان سوق لي فيسبوك تاس أيان ربا إن بلنتي أوفيو ألان إجر على النقطة وقتي أن شيء كما أنا سوقلين وأن كدي بدعي آدي بان وقدي بدعي هلا يجر على النقطة دبدعي أن كدي بدعينا هلا يجر على النقطة إن برنامج كأنه أوجد قال وأنا هاي محمد شيخ محمود ومحمد صنديرة سلا هذه جوّل برتين با أنا ما قاعد أيان هرمريا مرول با أما أن هلا يو أما أن لايف سوق لي يو إن مركزتون كشوق أدوك الدعالة دي سلا كلاتو وحن ربع ما أنت أنا ندين شيء كنتي إن أرميه أما يدوق برتين أما يدوق تقانين وحكب بدلن أيان ما أنت متقانا بايوك اللي فينا نصوق له تاس أو ummad walaaladay ah oo Soomaaliyeed oo runtii dhibaato aad u foolxumay ay ka dhaxdhacday ayaan rabaa inaan marka hore ku furfurto oo mataqaanaa aan ku bilaabo live-kayga marka ka dambe barnaamijkeennii caadiga ahaa iyo halkii aad iga barateen iyo siyaasadeedu halkii ay ku wajahnaan jirtay ayaynu u noqon doonaa marka koobaad asxaabta reer Facebook meel walba idin joogtaan kay habeen u tahay kay maalin u tahay kay galab u tahay دمانتي وأنا سلام يا وحنا الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كدد بدن أيا حسيا مركي أنا ودون ينام لا في سوق له دد بدن وحيدها كيبا سوق ليا ويهيد جريان هران يكون شيء وحنا يكوري برنامج كي قفكي شعل يقفكي نعب أنت بقى وفرني هاي ونكسر ودقيق جلي كران وأيه أنا أورنجري برنامج كدد جوني أمان الله يا إسكاب حدتك كلاو معها ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu furan yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay dhageysan kartaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan la hadlayaa markan dad khaas ah ayaan rabaa laakiin aan ku furfurto aanan ku bilaabo barnaamijkayga halkan waxaan rabaa dhacdooyinkii foosho xumaa ee ka dhacay laascaanood waagii dhaweyd ama maalmihii dhawaa aynu soo gudubnay aynu soo dhaafnay inaan ka hadlo waxaan aad iyo aad aan ugu tacsiyeenayaa ugana xumahay dagaalkii foosho xumaa ee meeshaas ka dhacay ee aqmaqnimada ahaa ee jahliga ahaa ee doqonnimada ahaa ee dadka walaalaha ee wada dhashay ee isku reerka ah isku dunta ah isku diinta ah isku qoyska ah arrintii fawaaxishnimada lahayd ee foosho xumayd ee dhaxdooda ka dhacday aad iyo aad baan u cambaaraynayaa runtii aad baan u cambaaraynayaa waana u tacsiyeenayaa dadkii walaaladay ahaa ee eheladoodii iyo iyagaba geeridu ay ka soo gaadhay geeridii foosho xumayd ay ka dhaxdhacday aad iyo aad baanan uga xumahay ulana tiiraanyooday ugana tacsiyeenayaa waxaan rabaa reerka dhulbahanta la yidhaahdo muddo aad iyo aad u dheer ayuu dagaalkoodu dagaal doqonnimo ah oo dagaal sokeeya ah oon loo dulqaadan karaynin ayuu ka dhex socday muddo aad iyo aad u dheer dadka aan la hadlayo waa reerka dhulbahantaha weeyaan dhulbahantow waan ka xumahay shakhsiyaal danaystayaal ah oo calooshood u shaqaystayaal ah inay maalin walba isku kindilaan shakhsiyaadkaas oo magac idinla sheeganaya oo dhulbahanto ku abtirsanaya oo jilibada dagaalamaya ku abtirsanaya oo maalin walba dhaxdiina halkii ay guul iyo gobonnimo iyo wanaag idinka soo hooyin lahaayeen midna uu Puntland iyo Garowe uu idinka soo qaadayo qori iyo xabad midna Hargeysa iyo Muuse Biixi uu qori iyo xabad idinka soo qaadayo waxaan aad iyo aad uga xumahay nimanka biiri qaatayaasha laaluush qaatayaasha tuugta dhiigyacabka magacyadoodana kulli la wada tirinayo khaa'imiinta ee magaca idinla wadaaga ee qowlaystayaasha calooshooda u shaqaystayaasha ee dhulbahantaha sheeganaya ee qaarna Puntland u shaqeeyaan qaarna u shaqeeyaan Somaliland inay maalin walba isku kiin dhuftaan oo isku kiin dilaan aad baan uga xumahay dhulbahantow rag waxaa la idinku yaqaanay taariikhda Soomaaliyeed iyo sooyaalka Soomaaliyeed taariikh leh geesiyaal ah gabayaa ah halgamayaal ah ilaahay baan idinku dhaariyay maanta
in xaafad xaafad ay ku noqoto oo la isugu kiindhiibo oo maalin walba umuladoox iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay iyo caloolodoox dhexdiinna inuu ka dhaco waa wax aad iyo aad looga xumaado waana waxaan laydinka filaynin haddii anugu aragtidayda anugu dhulbahanto magacaa guud iyo dhalashada ay ila dhasheen iyo soomaalinimada iyo islaamnimada baa ay xanuujinaysaa carra dhulbahanto mana degin kamana shaqaynin walow aanan nin yar ahayn oo nin weyn aan ahay haddana ninka tegey ma ihi haddaan soomaaliya joogay haddaan etoobiya joogay haddaan inta u dhaxaysa joogay iyo haddaan north america joogay midnaba ninka tegey dhulkaas ma ihi laakiin qofku markii uu yahay qof waxna akhriyo waxna qora aqoonyahana waxna kala garanayo taariikhdana uu garanayo dadkana uu ka dhashay wax walba halkaasuu ku og yahay wax walba halkaasuu kala socdaa adduunku oo dhanba galoobalaysi telefoonkaas ama kombiyuutarkaa ku hor yaalla baa lagu soo ururiyey dhulbahantow maanta in mid wax alla wax uu idiin hayaa uusan jirin oo leh house of speaker baan ka ahay hargeysa wax dan oo idin hayaana uusan jirin inaad ku daba dhimataan iyo mid le madaxweyne ku-xigeen baan ka ahay puntland oo anigaa dadka iyo dhulbahanto oo dhanba gacanta ku haya iyo mid le jabhad baan idiin sameeyeyoo waan idin xoraynayaa waa kaasina waa khaliif gallaydh saddexdaas nin waa khaliif gallaydh puntland somalilan saddexdaa inaad u dhaxaysaan saddexdaa gacmood aad baan uga xumahay aad iyo aad ayaan uga xumahay biidhiqaatayaal wasiirro lagu sheegay guddoomiyaal baarlamaan lagu sheegay oo hargeysa jooga oo muuse biixi gogoshiisa ku fadhiya ama nimankaas mataqaannaa waxoogaa yaroo naf lahayn ka qaata ama niman garowa fadhiya oo cabdiweli hoos fadhiya iyo ina camay hoos fadhiya oo iyaguna halkaas waxoogaa shilimaada gacanta loogu soo shubo in maanta ay isugu kiindhiibaan oo xaafadba xaafad hubayso oo qaarba xaafad soo hubeeyaan oo gacan shisheeye dhexdiinna maanta ay timaaddo oo gacan shisheeye ay idinka faa'iidaysato oo gacan shisheeye ay haweenkiinnii weer u wada xidhaan waa ayaan darro gacan shisheeye inay maalin walba geeri hor leh iyo gamaahiir hor leh iyo cuqubo hor leh dhulbahantow in ay idinka dhex ridaan puntland nabad bay ku laanoonaysaa haddaan carrabka ku dhufto ma jeerteen nabad buu ku naaloonayaa haddaan carrabka ku dhufto oona kala leexaninna isaaq nabad buu ku naaloonayaa reerka isaaq la yidhaahdo iyo reerka majeerteen la yidhaahdo labadaa reer waxaan ugu baaqayaa dhulbahanta inay faraha kala baxaan xaq baannu u leennahay inaannu hadalno aragtidannadana aannu cabbirno waynala dhasheen waa walaaladanno waa garaadadii waa halyeeyadii waa geesiyadii intaa ka badan looma dulqaadan karo intaa ka badan looma dulqaadan karo kuwa dhulbahantaha sheeganaya ee calooshood u shaqaystayaasha ah insha allaahu biidnillaah kariim mid baannu u soo qaban doonnaa ciidan baannu u diraynaa waannuna la dagaalamaynaa waannuna la jahatami doonnaa haddii alla idmo anugu ninkaan ahayna waad garanaysaan anugu nin absamo kuumada kablalaxa curadkii absamo ah inaan ahay sandheera aan ahay maxamed dheera aan ahay waad wada garanaysaan abad meeshaan galay ama aan dagaal ku kiciyey ama aan guluf dagaal ku kiciyena laygama guulaysanin biidnillaah eegana laygama guulaysan doono dhulbahante ragga weerarka ku haya ee kaga soo duulaya garowe iyo ragga kaga soo duulaya hargeysa ee nasabadoodii iyo casabadoodii iyo qayimkoodii iyo diintoodii baabi'iyey waannu ognahay waa ku dhulbahante ku abtirsanaya oo caloosh u shaqaystaa oo garowe jooga ku dhulbahante ku abtirsanaya oo hargeysa jooga oo caloosh u shaqaystaa ragga waxaa samaynayow ilaahayna wuu idin arkaa oo ilaahay baa idinka soo qabanaya ummadda biidnillaah ilaahayna wuu idin qabanayaa intii aqli leh ee garaad leh ee wax garanaysaana way idin aragtaa dhulbahantow wiil idinka dhinta mooyaane wiil idiin dhalanayaay ma jiro waxgaradkii dhulbahantow garaadadii dhulbahantow tashada cidina idinma maqna ceella idinma qodna ceelalyana idinma maqna buu yidhi ceelalyana
ninbaa geel soo arooriyey oo ku dul reebay markaasuu geeli ka oomay waa saasuunan ceelal kuugu qodan ceelal yana kuu maqnayn buu yidhi dhulbahantow wax tol idinla ah oo harti la yidhaahdaayey ma jiro anuu runtaan idiin sheegayaa hadalka kama gabbado wax harti la yidhaahdaayey ma jiro harti wax la yidhaah ood isku hadlaysaani ma jiro waxa la yidhaahdo koombo ama harti la yidhaahdo ood isku hadlaysaani ma jirto nimankan iidoor dhex jooga ee Somaliland race baynu nahay idinkulana nimankaas dal iyo daditoona idinkama dhexeeyo abadka awow dadaad isdishaan oo isdagaashaan bay ahaayeen dhulbahantow Soomaali reer walba goonidiisu u tashaday reer walba goonidiisu isugu luwaduday reer walba danihiisa iyo ayahiisu ka tashaday dhulbahantaanu kala qaadi maayo dhulbahantow dantiina garta waxaa weeye madaxweyne ku-xigeenka Puntland waa nin dhulbahantaa waa nimaan weliba abti u ahay kuwayow ka awood badnaa oonu abti u ahayn oonu abtiyaal u ahayn baanu u dulqaadan kari weynay oonu xididada u siibnay ninkaas abti baan u ahay bilaa calayg reerkiinna waxaad ku hayso wax loo dulqaadan kara maaha xisho bilaa calayg waxaad reerkiinna ku hayso ama waxaad dhulbahanta ku hayso wax loo dulqaadan kara maaha wax loo dulqaadan karo maaha ninka baasha la yidhaahdo ee House of Speaker-ka ka Somaliland iyo Hargeysa ninkaasow waxaad ku dhaqmayso adiga iyo groupkaagu wax loo dulqaadan kara maaha dhulbahantow garaadka guud iyo Soomaalida samaha jecel waa garaad maxamed garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad xirsi baaqi nabadeed uu ku dhawaaqay baan ta'kiidinayaa garaadka sharafta leh ee da'da yar nabadii uu ku baaqay ayaan ta'kiidinayaa anigu haddaanu nahay beeshaha ka soo jeeda ama beelaha ka soo jeeda ama dadka halkaa u nasab sheeganaya ee kuumade ee absame ee jigjiga degan ee geyigaas degan haddaan u abtirsanaya anigu oo ka soo jeedo ka maxamed sheekh maxamuud ahaan arrintii garaadka iyo baaqii garaadku idinku baaqay uu yidhi xabadda ha la joojiyo dagaal wiil unbaa ku dhintay wiil kuma dhashe kaasaan xoojinayaa kaasaan aniguna idinku baaqayaa dantiinna garta ayihiinna garta ilaahay baan idinku dhaariyee ninkii dhintay soo noqon maayee dibna loo soo celin maayee inta dambe ka tashada wiil dambe suuna u dhimanin intiina dambe ka tashada ilaahay baan idinku dhaariyee ninka la yidhaahdo Cali Khaliif muddo dheer buu dhulbahanta dhex joogaa waadin horeynayaa buu ku hayaa maalin garan wuu joogaa maalin xamar buu joogaa maalin hargeysuu joogaa waa ninka professorka ah gobolka anigu iyo waddanka aan joogo macallinka ka ahaan jiray 200,000 dollar sanadkii ku shaqeeya 200,000 buu sanadkii ku shaqeeyaa magiciinu qaraamaadka kaga soo qaataa ummadaha marna carabta ugu dhoofayaa mar faramaajo ugu tagayaa mar ugu tagayaa mataqaanaa Muuse Biixi mar ugu tagayaa Garawi iyo halkaas waxaa weeye magiciiniibu ku qaraabsanayaa magiciiniibu ku dawarsanayaa idinkana haweenkiinii baa weer wada xidhan caawa haweenkiinii weer bay wada xidhan yihiin haweenkii gabdhaha yaryar ee ku ooynaya tolaay gabdhaha yaryar ee weerka xidhan ee daawanayay gabdhahaasow tol baad leedihiin rag baa idinla dhashay daarood Ismaaciil baad tihiin waa la idiin hiilin doonaa biidnillaah kariim Soomaalida samaha jecel iyo inta wanaagga ka shaqeynayaana way idiin hiilin doontaa biidnillaah kariim waanu idiin hiilin doonaa annaga oo daarood idinla kablalah idinla baanu idiin hiilin doonaa biidnillaah waana la idiin hiilin doonaa insha Allah ta'ala aad baan uga xumahay dagaalkii fawaaxishnimada lahaa ee ilaawaanka ahaa ee halkaa ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay aniga iyo intii ila wadaagta yacni magaca daarood Ismaaciil aad iyo aad baan uga xunnahay dagaalkaas intii absame ila wadaagta intii kuumada ila wadaagta intii yacni kablalah ila wadaagta
daacadda ee lillaahida arrintaas aad baan uga xunnahay waa arrin laga dhiidhiyo waa arrin laga geeriyoodo waa arrin aan loo adkaysan karaynin dhulbahantow rag warangal ah oo aqligal ah oo wax kala garanaya oo geesiyaal ah oo haliyeeyaal ah oo gabayaal ah baa idinka dhashay taariikhdu waa laba ilaawaan suugaanta iyo buugaagta ayaad ku qoran tihiin maanta inuu isku kiin diraan niman wax alla wax dan oo idin hayaa aysan jirin oo hargeysa ku raaxaysanaya ama niman Garowe iyo Puntland ku raaxaysanaya magacana idinla wadaago oo dhulbahantaanu nahay idinku leh iyaguna baabuur qalfilan oo ina xabadu karin ayay ku raaxaysanayaan mid walba guri filaa iyo dhowr boqol oo kun oo doolar ayaa gacanta loogu shubaa si aan dhulbahanto awoodiisa iyo quwadiisa iyo wanaagiisa yacni loo kala qaybiyo ayaa nimanka loogu laalushaa ninka ma jeerteen ee ninka dhulbahanta laalushayo dhulbahanta inuuna isu tagin dhulbahanta quwadiisu ayna soo bixin ayay rabaan eray baan doonayaa dhulbahantow inaan idiin sheego dhulbahantow anugu halkaa markaan ka hadlaya ma baqo ilaahay baan ka baqaa ma jeerteen ma rabaan quwadiinnu inay soo baxdo dhulbahantow ma jeerteen ma doonayaan quwadda dhulbahanta in la arko sida quwadda jidwaaq ogaadeen uuna u rabin inay soo ogaadeen anugu haddaan nin jidwaaq ahay ogaadeen ma rabaan jidwaaq inuu soo baxo quwad jidwaaq inay arkaan ma rabaan bal haddaanigii dhegaysta waxba maqarni runtaan idiin sheegayaa ogaadeen baan leeyahay reerka ogaadeen ee aniga ila dhashay een magaca la wadaaga ee absama kuumade nin jidwaaqih inuu soo baxo ama darajash yeesho ama wax xukumo ama wax maamulo ama awooddiisu ay kor u kacdo ma rabaan waa reerka ogaadeen la yidhaahdo reerka jidwaaq absama la yidhaahdo ma rabaan awooddooda iyo quwaddooda in ay arkaan uma baahna sababtoo ah dee ogaadeennimadii iyo magicii lagu yaqaanay ayuu jidwaaq hoos u dhigaya hadduu jidwaaq soo baxo waa inaydu fahamtaan dhulbahantow ma jeerteen waxba idinma oggola annagu absame halkaannu ka taagannahay baad harti ka taagan tihiin dhulbahantow aqligu inuu shaqeeyaa loo baahan yahay aqligu inuu shaqeeyaa loo baahan yahay war hargeysa waxba kama tihid raggaagii waa la gumaaday war Garowe waxba kama tihid raggaagii waa la gumaaday war biidhi qaatayaal baa tihiin war raggan xafiisyada u xaaqdaan runtaan idiin sheegayaaye biyatoodayaal baa tihiin wax alla waxaa tihiin ma jiro Garowe ma jeerteen baanu u naqaanaa Puntlandna ma jeerteen baanu u naqaanaa ma jeerteen baa iskale harti ma laha ma jeerteen baa le idinku ma lihidin Somaliland isaaq baa iskale idinku ma lihidin raggiin iyo carruurihiinna maalin walba waa la lagu dhul dhaantaynayaa sanad walba kumaan baa idinka dhimanaya bal halkaan idiin istaaga eeg anugu ciddii runtu dadku ma jecla reerka ogaadeen la yidhaahdo ee aniga ila dhashay ee ogaadeen absame la yidhaahdo jidwaaq absame kor inuu u kaco ma rabaan maxayna u rabin awooddaanu la qaybsan baawar sheerikaanu la qaybsan dhaqaalahaanu la qaybsan madaxdaanu la qaybsan wax walbaanu la qaybsan iyaguna reer ogaadeen la yidhaahda keliyeetay rabaan inuu cirka inuu galo ummadda kale oo dhan ee absamaha ana alaacasha hoosteeda lugta hoosteeda inay ku hayaan bay rabaan nin kale oo absamihii kor inuu u kaco ma rabaan reerka ogaadeen la yidhaahdo nin absamaha madaxa inuu kor ula soo kaco ma rabaan dee runtaan idiin sheegayaa war dhulbahantow ma jeerteen idinma rabo baawarka keliya iyo awoodda keliya ee macnaha ma jeerteen yac dhihi kartaa tihiin iska celi karaa tihiin runta u sheegi karaa tihiin war siduuna ogaadeen jidwaaq uuna u rabin ogaadeen jidwaaq uu allarjiga ugu yahay uu ugu xajiimoodo ayuu dhulbahantow ma jeerteen idinku xajiimoodaa harti baynu nahay iyo walaalaynu nahay iyo walaali iyo waxaan war iska ilaawo waxaas wax la yidhaahdaa ma jiro waxaas waa laga tegey waa la ilaaway 21st century baa lagu jiraa adduunkan nin walba ninkuu yahay buu noqday dhulbahantow maalin walba in iidoor
iyo majeerteen isugu soo kiin dhiibaan xabadda oo nag iska dhigtaan oo isbaabi'isaan waa ayaan darro waa gunnimo waa gabadhaada guurwaa aad baan uga xumahay in maalin walba waxaana macno lahayn aad isku baabi'isaan maalin walba raggiinnu waxaan macno lahayn uu ku dhinto gabdhihiinnu maalin walba weer ay u qaataan gabdhihiinnu ay u ooyaan gabdhihiinnu ay u baroortaan gabdhihiinnu ay u dhahaan tollaay wax noo hiiliya male dee yaan idinka hiilinaa waa yahay dhulbahantow hadduu isaaq idin soo weerari lahaa tollaayaa daaroodaad ku ooyi lahaydeen hadday soomaali kale idin soo weerari lahayd tollaayaa daaroodaay baad ku ooyi lahaydeen maxaad hadda ku ooynaysaan hadduu xataa majeerteen idin soo weeraro tollaayaa dhulbahantahay baad dhihi lahaydeen idinkii baa islaynaya idinkii baa iscunaya idinkii baa isbaabi'inaya waraaba iscunayaa maxaa la yidhi walaala iscunaya waraaba iskama celiyaan maxay ahayd walaala iscunayaa waraaba iskama celiyaan baa la yidhi mahmaahdu hadday iga khaldan tahay iyo hadday ii saxsan tahayba waa sidaas waxaa weeye ilma adeerayaalow geeridiinnu wayna dhibtay gabdhaha barooranaya wayna dhibeen gabdhaha weerka xidhan wayna dhibeen gabdhaha oynayaa wayna dhibeen biidnillaah adduunku maanta keliyeeta ma ahee biidnillaah waa loo hiilin gabdhahaas waa loo hiilin gabdhaha weerka qaatay ee oynaya ee dhulbahanto waa loo hiilin insha allahu tacaalaa labada dhinacba idinku isma dilaysaane dhulbahantow dad baa isku kiindilaya dhulbahantow col ma aha dad baa isku dilaya dad baa qoryaha isugu dhiibay dad baa hubka isugu dhiibay war iska garta dadkaas war cadaqaatayaashaa iska garta war tuugtaa iska garta war ilaahay ka baqa war ilaahay intaad ka baqdaan dhulbahantow waan ku celinayaa harti baanu nahay war wax harti la yidhahda ma tihiin war dhulbahantaad tihiin war dhulbahantaad u baaba'deen war dhulbahantaa la idiin gumaaday war dhulbahanta ahaan baad u rogmateen war dhulbahanta ahaan baad dal iyo duunyaba u weydeen war dhulbahanta ahaan baad dhinacan iyo isaaqna laydinka gumaaday dhinacan iyo mataqaanaa puntlandna laydinka gumaaday tukarraq baan joogaa maxay baan joogaa war waxaasi ma shaqaynayso war idinkaa la isku kiin dilay war idinkaa la isku kiin dilay war waad baaba'deen war waad rogmateen war waad gubowdeen war gabar dambe laydinka guursan maayo waraaway garaadadii waraaway caaqiladii waraaway halyeeyadii waraaway waxgaradkii waraaway aqooyaankii war dhulbahantow ilaahay ka boqo xishooda war dhulbahantow intaad iska layseen isu tanasula in dambe ha iska dilina isu tanasula bilaa shuruud isugu tanasula bilaa shuruud isugu tanasula dhulbahanto intaasaan kaga baxayaa warkiisii iyo sheekadiisii waxaan u soo noqonayaa siyaasaddaydii meelihii la iga bartay iyo halkii ay ku wajahnaan jirtay war horta kililkan dawlad deegaanka soomaalida uu mudane mustafe maxamed cumar uu ka yahay madaxweynaha ma mustafa madaxweyne kaa mise ummadda oo dhan baa madaxweyne ka wada ah war mustafa meeshaa madaxweyne ka ah mustafow waxaan ku leeyahay haruurka milixda ku bato ama cusbada ku badato ciidamo cunta baa la yidhi macnaha haruurkii distidii ay haween fara badan kariyaan cusbadaa ku badata baa la yidhi war boqolaalan la taliya haddaad yeelato boqolaalan munaafaq haddaad yeelato boqolaalan yacni isaga kaa dhigaya saaxiib iyo xigta haddaad yeelato boqolaalan xisbi iskala kaa dhigaya haddaad yeelato kun taliya haddaad yeelato dadka waxba u qaban maysid mar kaleaan ku celinayaa ninka mustafa la yidhaahdo waa degaanka ninka madaxweynaha kaa dawlad degaanka soomaalida Somali State mudane mustafe maxamed cumar mustafow xukunkaagii iyo maamulkaagii waxaa ku batay qaar leh xisbi baanu kula nahay oo siraaj iyo dulmidiid baanu kula nahay leh qaar kule annagaa talo wanaagsan kuu hayno odayaal baanu kuu nahay iyo qaraabo qaar kule waxaanu nahay aqoon-yahanno qaar kule maxay baanu nahay mustafow ilaahay baan kugu dhaariyey
dalku dulmi badan iyo dhibaato badan iyo hoog badan iyo haydaarto badan baanu soo marnay dalku arrintii ayaysan ku noqonin la taliyayaashan faraha badan iska daa waxaan kaloo halka rabaa inaan uga faa'iidaysto cabdi maxamuud cumar raggii la soo shaqeeyey rag badan oo facebooka kale heegaa la uwaarsanayaa baan maqlayaa cabdi maxamuud cumar raggii la soo shaqeeyey wada laaluush qaatayaal bay ahaayeen wada tuug bay ahaayeen wada beenaalayaal bay ahaayeen kuwii gabdhaheenna dhibaateeye bay ahaayeen kuwii haweenkeenna kufsaday bay ahaayeen kuwii dadkeennii laayay ee dhiigga gale ee dadka dhafoorka wada toogtay bay ahaayeen kuwii abadkood ma daahirayaan cabdi maxamuud cumar nin la soo shaqeeyey maamulkaaga ka mid inuu noqdo ma aha maamulkaaga inuu ka mid noqdo ma aha anugu waxaan aaminsanahay nin cabdi maxamuud cumar la soo shaqeeyey in uu yahay nin tuug ah nin laaluush qaata ah nin khaa'in ah nimaan abadkii daahiraynin dadka la soo shaqeeyey cabdi maxamuud cumar maamulkaaga iyo xukunkaaga midna boqol jeer baanu arrintaa sheegnay boqol jeer baanu ka hadalnay boqol jeer baanu mataqaanaa soo jeedinay dadka isugu kaa sheegaya xisbi baanu kula nahay oo maamul baanu kula nahay le dadkaas ka feeyignow dadka kule odayaal baanu nahay oo qaraabaanu kuu nahay xigtaanu nahay ka feeyignow dadka kale ee kule waxaanu masab u nahay waxgarad iyo aqoon-yahanaanu nahay dalka adigaa madaxweyne ka ah aqoon-yahan baa tahay adaa laguu dhaariyey kitaab qur-aana adaa u maray adaa lagaa rabaa inaad xukunto ood maamusho adaa lagaa rabaa cadaalad inaad ku maamusho adaa boqol wiil oo nin walba meel facebook ka soo hadlayo sidaa samee war dalka ma mustafa xukuma mise dad kalaa xukuma dadka adaa xukuma mustafow madaxweynaha degaankana adiga ah hadda boqol madaxweyne iyo boqol la taliye iyo boqol tugtug dhalay ayaa sidaas meel walba u xulayo u maraya intaa qoraallo qoraya intaa soo gelaya facebookyada adeer dadkaas looma baahna waxaan ku soo gunaanadayaa warkayga iyo hadalkayga waxaan u soo galay oo aniga nuxur ii ahaa maanta oo murti ii ahaa nimankaa dhulbahante ee ka adkaysan kari waayey ee doqomada ah ee qaabka loo adeegsaday iyo qaabka la isugu dilay aan loo dulqaadan karin baan maanta facebooka u soo galay waxaan hadalkayga ku soo gebagabaynayaa madaxweyne mustafow ilaahay baan kugu dhaariyey adiga walaalkaa dulmi buu ku dhintay walaalo fara badan oo walaalkaa la mid ana dulmi baa lagu dilay ku sameeyey waad ogeydeen dulmigii inna lagu sameeyana waad ogeydeen ilaahay baan idinku dhaariyey oo ilaahay baan kugu dhaariyey fawaaxishnimadii kilka ka jiri jirtay ayayna dib ugu soo noqonin mustafow haddaad gobonnimo iyo geesinimo iyo cadaalad aad ku maamuli weydo risaangare haddaad dad ka maamuli weydo oo lagu dhibo oo mataqaanaa aad ka shaqayn kari weydo dhiig yacab ha noqonin dhiig ha gelin inkaariyayna kugu dhicin cuqubayayna kugu dhicin sharaftaadii cirdigaagana ha ku ciyaarin risaangare kaalaya ismaamula ku dheh kaalaya idinku isxukuma ku dheh gacmahaagu waa nadiif dhiig ha la gelin waxaanse kaa codsanayaa sharcigu inuu shaqeeyo dadku kala dambeeyaan oo dawladdii iyo ciidankii iyo nidaamkii iyo amnigii inuu soo noqdo amnigu waa inuu shaqeeyo sharcigu waa inuu shaqeeyo dastuurku waa inuu shaqeeyo dawladdu hal madaxweyney leedahay adaa madaxweyne kaa nin kale anigu uma aqoonsani nin kale uma aqoonsani waxa kale waa wasiiradaadii waa shaqaalahaagii waa kamarkaagii ciidanku waa saraakiishaadii kulli adag ku wada hoos imanayaan dhammaan madaxweyne mustafa maxamed cumarow dadkaas oo dhan aday ku wada hoos imanayaan adigaa lagaala xisaabtami ilaahay aduu kaala xisaabtami madaxweynaha anugu aan aqoonsanahay waa mustafa keliyeeta adduunka dacaladiisoo dhan marba mid baa facebook soo geli saa shaqaalaha waa in la yeelo saas waa in maxay la yeelo kan waa in maxay la yeelo warragu dee kulama taliyaan adaa waddanka u taliya aga madaxweyne inaad tahayba miyaadaysa ogayn war waddanka adaa madaxweyne kaa waddanka adaa xukuma waddanka adaa taliya kaa kunka nin walba uu leeyahay sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan dee madaxweyne annaga noomaaha
ninka kitaabka waddanka loo mariyey ee loo dhaariyey ee waddanka u dhaartay ee madaxweynihii waa adiga heegalkii madaxweyninimo shakhsiyaddii madaxweyninimo nidaamkii madaxweyninimo la imow dawladnimo la imow geesinimadeedii la imow siyaasaddeedii la imow hufnaanteedii la imow go'aan qaadashadeedii la imow laakiin mid walba intuu mar telefoon kuu soo dir mid walba text message kuu soo qoro mid walba facebooka wax ku soo qoro waa in saas la yeelo waa in saas la yeelo waa in saas warde waddanka nin baa xukumo oo loo dhaariyey ma xukuntaane shaqooyinkiina kala qabsada aga bal ninkan waagii aanu mucaaradna ee mucaarad in la mucaarado uu gaadho ha lagu simo bal ninkan in mucaaradaha lagu simo ninkan isagaa hadda madaxweyne waddanka isagaa xukuma midig wuxuu wax kasta waxay rabaan inay u yeedhiyaan wax kasta waxay rabaan inay u sheegaan wax kasta waxay rabaan inay yidhaahdaan xataa ka midashiibiyada dhulka xaaqaya in mustafa loo sheegaa la rabaa oo kaa ka dhig la yidhaha bay rabaan war ninka break siiyo oo wakhti siiyo oo haydinka shaqaystee ha fikiree go'aamadiisa ha qaato u daaya dalka isagaa madaxweyne kaa nin walba intiisaa la sheegaa muuse bixi baa waxaan ka dhegaysanayey waannu ku doorannay oo madaxweynaannu kaa dhigannay iyo haddana ku maqli mayno laba meel wada mari ma aha buu yidhi yaa yacni ucud iyo mataqaanaa faysal caliwaraabiya wuxuu ka hadlayay cabdiraxmaan cirro labada guddoomiye xisbiyeedoo kaleetuu ka hadlayey wuxuu yidhi waannu ku doorannay muusow iyo haddana ku dhegaysan mayno kala daaya buu yidhi war eraygaasi waa eray mudan macnaha in lagu halqabsado war hadda mustafa waannu ku doorannay oo madaxweyne adigaa noo ah oo adaannu dalka kuu dhaarinay oo Somali State Mustafa Maxamed Cagshar baa ka mataqaanaa madaxweyne iyo 22 nin adduunka dacaladiisa oo dhan baa la isaga wada kala yimid Yurub baa laga yimid Nairobi baa laga yimid Afrika laga yimid Soomaaliya laga yimid nin walba wuxuu leeyahay anaa tala ku haya war taladiina iskala wada taga ninkan tala uma baahna adeer tala uma baahnide nin aqoon-yahana wax bartay dhalinyarada mataqaanaa hay'adi iyo human rights kala soo shaqeynaya baa tahay dalka adaa madaxweyne lagaaga dhigaye go'aankaaga gaad qol isku soo xidh kofay cab yacni u fikir u seexo u soo toos u istiqaarayso dalka maskaxdaada ku xukun waddanka dalka aqligaaga ku xukun adeer dalka aqligaaga haddaad ku xukumi weydo oo lagula xukumo oo inaaga kula xukumaan oo kula xukuma islaan ina hebel kula xukuma ina heblaayo kula xukunto dee madaxweyne ma noqonaysid aga adeer dalka adiga madaxweyne lagaaga dhigay konton baa ka soo duulay Nairobi konton baa Muqdisho ka soo duulay konton all over the world adduunka dhan baa laga wada yimid North America oo dhan baa laga wada yimid nin walba wuxuu ku leeyahay daabiyadii yareeyay jigjiga war jigjiga imisa nin baa ka shaqaaloobi karta imisa nin baa qandaraas laga siin karaa bal imisa nin baa qandaraas laga siin karaa imisa nin baa ka shaqaaloobi karta dee jigjiga Addis Ababa ma waa magaalo yar walaal reeyaan shacabka ha loo shaqeeye culayska ninka ka daaya oo dhibaatada ninka ka daaya oo ilhaamaysan aad yacni widi ka shaqaysan kari laayahay widi ka kaadin kari laayahay barafasi iyo wuxuu idinka waayay halkii uu ka fikir lahaa uu dadka wax u sheegi lahaa uu yacni ummadda la hadli lahaa uu ka fikir lahaa beritoole wuxuu uu qaban lahaa waa la wareeriyey nin walba wuxuu leeyahay minhaaj buu u soo kala bixinayaa aniga maxay wataa war dadka dhan wada shahaade wataan dadka dhan waa wada degree dadka dhan waa wada master dadka dhan waa wada PhD war niman shahaado wadan inta naguma jiro 20 sano ugu dambeysay dadku waxbay barteen kulli waa wada master iyo wada professor iyo wada jaamici weeyaan imisa professor buu reer ku leeyahay kulli ma shaqay wada heli karaan imisa master buu reer ku leeyahay kulli ma wada shaqay heli karaan ma heli karaan warda waxbarashadiina adduunka ugu shaqo taga midda kale adduunka waxaa laga yaqaanaa salaf employee waxa la yiraahdo salaf employee ma taqaanaan war iska wax u qabso qof walba adigu wax soo saar samee qof walba adigu wax soo saar adaa laga rabaa shaqo inaad dhulka geliso adaa laga rabaa investment adaa laga rabaa inaad geliso war cadaaladii yaradana dadku ha wada gaadho mid walba markuu faraqa u hoorsado uu mid walba yiraahdo hotel ha la iseexiyo mid walba uu yiraahdo gaari ha la isiyo mid walba uu yiraahdo ha la ilaalusho mid walba uu yiraahdo shaqo ha la isiyo ده شعبكي maxay helayaan waxaan ka dhageystay Dr. Abduwasa Abdullahi Bade maalin uu
xaflad meel aanu ugu qabanay uu ka hadlayey dadka magaalada joogaa waa in yar inta miyiga joogaa inaga badan intii miyiga joogtana way dulman tahay buu yidhi adeer dadkii miyiga joogay way dulman yihiin ma hadlan karaan adeer cadaaladda iyo dhaqaalaha la gaarsiiyo miyiga caafimaadka miyiga ha la gaarsiiyo dhaqaalaha miyiga ha la gaarsiiyo iskuullada miyiga ha la gaarsiiyo biyaha miyiga ha la gaarsiiyo nabadgelyada miyiga ha la gaarsiiyo iyo reebaadiyaha dawladdii iyo dadkii oo dhan jigjiga ku soo wada ururtay war Somali state ma jigjiga unba away caalamkii kaleeto away gobolladii kale away degmooyinkii kaleeto away dadkii kaleeto away ummadii kale war dadkan jigjiga tubanow ee Mustafa uu ka shaqayn la yahayow adeer ma waxaad naga rabtaa intaanu ciidan samayno inaanu idinla dagaalanno ciidan intaanu samayno inaanu idinla dagaalanno ma taasaad u baahantihiin oonu amar bixino oonu awood isticmaalo oonu dhahno nin walba meeshaada ku noqo ama nin walba aan dhahno 24 hours gudahood waddanka kaga baxa dee way dhacaysaa haddii la joojin waayo arrimaha la wado nin walba wuxuu ku leeyahay anaa war kuu haya anaa tala kuu haya anaa kan kuu haya anaa maxay kuu haya mustafow dalka adaa madaxweyne ka ah aqligaagu ha shaqeeyo maskaxdaadu ha shaqayso ha shaqeeyo sharcigu kala dambayntu ha shaqayso kala dambayntu ha shaqayso mustafow waxaan kugu waaninayaa kitaab quraana adiga dhulka u maray adaa lagu dhaariyay adiga Somali state madaxweyne ka ah Cabdi Maxamuud Cumar kursigii laga eriyay ee dulmiga laga eriyay adaa ku fadhiya ilaahay baan kugu dhaariyay anigu banaankeenu mucaarad ka wada ahayn adna mucaarad baa ahayd Cabdi Maxamuud Cumar anna mucaarad Cabdi Maxamuud Cumar baan ahaa war wixii aad ka dagaalamaysay iyo wixii mucaaradka ka ahayd hana ku dhaqmin hana samayna adigu dadka u cadli samee cadaalad samee dadka in yar baa jigjiga ka shaqayn karta in yar baa mataqaanaa wasiir noqon karta in yar baa xafiis maamuleedyo noqon kara ummadda oo dhan kulligood ma wada wasiiray noqon karaan ma wada amiiray noqon karaan ma wada taliyaal ciidamay noqon karaan ma noqon karaan shaqaale hufan wasiirro hufan kamaneed hufan dad shacabka u shaqeeyaan anagu u baahannahay dad shacabka u shaqeeya ayaanu u baahannahay oon qabyaalad lahayn oon qurun lahayn oon reeheb lahayn oon jeclaysi lahayn ayaanu u baahannahay taasaan u baahannahay waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa war dadkan dibadaha ka yimidow waan ku celcelinayaa war dadkan dibadaha ka yimidow nin walba boorsada watow war dibadahay lacag taallaa war dibadahay shaqa taallaa war adeer jigjiga lacag ma taalo jigjiga shaqa ma taalo anigii oo ku shaqeeya 200 oo kun oo dollar nin kale 200 oo dollar baan ku shaqaynayaa wuxuu u sii socda miyayna tuuganimo ahayn miyayna munaafaqad ahayn miyaynan aynimo ahayn 200 oo kun anoo ku shaqayn kara sanadkii 100 kun anoo ku shaqayn kara sanadkii 60 kun 50 kun oo dollar anoo sanadkii ku shaqayn kara war bal ninka 200 oo dollar times 2 waa imisa 200 waa 2400 oo dollar 2400 oo dollar qofka shaqaysta ee educationka lahayn ee skillka lahayn ee assembly joobka ka shaqeeya ee line-ka taagan baa 2000 oo dollar bishii shaqeeya North America ninka intuu halkan ka haytay America ka tagay yiri Mustafa shaqan ka rabaa shaqa ma rabaa tuugnimu rabaa tuug weeyaan kaasi ada qaata weeye bir qaata weeye laaluush buu rabaa kaasi dadka inuu dhacu rabaa kaasi war dhulkiina ku kala noqda war shaqooyinkii ku kala noqda war dadka ha dhibina war madaxweynaha ha dhibina war ummadda ha dhibina war adeer waanu idin daawanna waanu idin aragnaa dee guluf colaadeed oo adag baanu idinku soo kicinaynaa bal ninka ilaahay baan kugu dhaariyay wasiir ah ee master baan ahay ee PhD baan ahay la 200 oo dollar baan ku shaqaynayaa yuu ka gadayaa warkaas beenaale miyuuna ahayn beenaale miyuuna ahayn tuuga war ninka dhaktarka ah ilaahay baan idinku dhaariyay engineeringka ilaahay baan idinku dhaariyay yaa bahaday dhageysta dhaqaalaha ka soo qalin jabiyay bahaday dhageysta makaaniga professionalka bahaday dhageysta
ilaahay baan idinku dhaariyey ee ku shaqayn kara yeer 60 ilaa 100 intii u dhaxaysa leh 200 baan ku shaqaynayaa wadinkaas miyuunan rabin waxoogaa yaree federaalka ka timid ama canshuuraha laga ururiyay meelaha iyo jigjiga iyo xaafadaha iyo yaanyada iyo islaamaha bataatiga iyo qaadka haysta canshuurtii laga ururiyay inuu dhacaw sabuuna meesha ugu tagin marka easy money baa meesha taala easy money ayaa meesha taala waxaan arkaysaa nin 5,000 oo riyaal ku shaqaynayay 5,000 oo riyaal oo guri filaan istabaan soo aragnay anagu gurigaasi walku ugu yar yahay 200 oo kun oo dollar buu joogaa value-ga uu joogo waa 200,000 weeyaan shaqaale hooseedna wuu ahaa xaguu lacagta ka keenay miyuuna tuug ahayn miyuuna laalush qaata ahayn miyuuna dhiigga ummadda cabaynin war mustafow nin wax bartay baa tahay nin dhalinyaro baa tahay ilaahay baan kugu dhaariyey maalintii wasiirada la dhaariyey kulankii ugu horreeyay la kulantay khudbaddii aad khudbadaysay khudbad macaan bay ahayd khudbad aad iyo aad loogu riyaaqo bay ahayd $5,000 riyaal nagu filaan mayso xaaraan intaynu cuni lahayn mushaharka aynu kororsanno aynu xalaalaysanno ku khudbadeeyey laakiin 5,000 baan qaadanayaa oo riyaal guri $5,000 ana kiradiisaan deganahay $5,000 guri ah na uu kiraysan yahay filla u kiraysan waa $5,000 $5,000 riyaal lagu qaataa lacagta ku ka keenay war miyaan isweydiin mudnayn dhammaan dadka meesha jooga ee xukunka raadinaya ee PhD baanu nahayle ee master baanu nahayle ee degree baanu nahayle ee associate degree baanu haysanaale ee skills baanu haysanaale ee qurbaha ka tagay ee America ka tagay ee Europe ka tagay ee adduunka dacaladiisa ka tagay kulligood waxay rabaan tuuganimo waxay rabaan dadka inay dhacaan waxay rabaan dadka dhiigiisa inay cabaan mustafow adiga ku taala two choice adiga ku taala inaad xaq raacdo oo dariiqa ilaahay iyo jidka mustaqiimka inaad raacdo iyo jidka qodxaha badan ee ragii ka horeeyay ay ku hoogeen ee ku halaagsameen inaad raacdo two choice labada choice adiga iskale hadalkayga intaas aan ku soo gunaanaday two choice xaqa iyo cadaaladda iyo ilaahay wajigiisa inaad raacdo iyo inaad raacdo jidkii qodxaha lahaa ee cadaabta ahaa ee lagu hoobtay ay ragjeelka hadda ugu jiraan muxuu yidhi ninkii maxaa ugu dambeeyey maydkaas kaa la sii wadaa ugu dambeeyey ku cabdi ilay meeshuu ku jiro waa kii kaa horreeyey ilaahay baan kugu dhaariyee ummaddaada u tudh talada faraha badan uu nin walba boorsada wato uu nin walba buugga kuu soo qaatay uu nin walba leeyahay oh I have a dream what dream you have man I have a dream or carruurtaada ku dream or carruurtaadii korso or reerkaaga u shaqee or naagtaadii baa cidla joogtee u tag carruurahoodii iyo naagahoodii iyo ilmahoodii bay ka wada yimaadeen waa wada homeless waa wada dulli waa dad wada dhintay waa dad wada baktiyey markaase waxaa rabaan maamul inay yidhahaan maamul baanu qabanaynaa war nin xaaskiisii iyo ilmihiisii baylihiyey baa wuxuu ku leeyahay maamul baan qabanayaa oo iskaga tegey oo mashaqaystaa oo tuuga adeer kililkii wuu rogmaday dee aga wadda jigjiga way wareertay jigjigana saa ku jiri maysa waa loo talin biidnillaah waa loo talin doonaa jigjiga adeer way wareertay jigjiga beenaala iyo calaqaato oo dhan iyo tuug oo dhan iyo laalush qaato oo dhan baa isugu tegey waxaan halkayga ku soo gabagabeynayaa dhammaan shaqaalihii cabdi maxamuud cumar oo dhan waa in laga tirtira kililka shaqaale xalaala oo daacada oo lilaahiya oo laalush qaatayaal aan ahayn kulligood isagaa wada tababaray miduu yidhaahda nacallaa hooyadaa waxaa ku yaal nacallaa aabbaha waa diintaada malaa'igta dad waxaas lagu wada afbaray oo waxaa lagu tababaray xukunkaaga inay ka mid noqdaan oo mid tukada aan lahayn oo mid salaada aan lahayn oo mid ilaahay ka baqaya aan lahayn oo mid walba nacdal iyo tuugannimo uu meesha ku hayo xukunkaaga inay ka mid noqdaan ma aha dad ilaahay ka baqaya oo rabbi ka baqaya oo shanta waqti tukanaya oo ilaahay uga baqaya inay dhimanayaan maamulkaagu ha noqdo maamulkaaga dib ugu samee muraajacayn ku samee dib u eegis ku samee maamulkaaga xukuumaddaada dib u eegis ku samee
muraajacee dib u fiiri adoo keligaa kofee u cab xataa ninka waardiyaha yuuna kuu soo gelin keligaa qol hoosta iskaga soo xidh waa sida adduunka anigu aan joogay horumaray ay sameeyaan markay doonayaan inay decision gaadhaan war decision markaa rabto inaad gaadho iyo go'aan markaa rabto inaad gaadho war qolkaaga isku soo xidh go'aanka ilaahay u istiqaarayso keligaa qaada adigu taasaa madaxweynenimo la yidhaahdaa taasaa decision la yidhaahdaa taasaa hoggaan la yidhaahdaa taasaa liirarnimo la yidhaahdaa laakiin ina hebel baa wax ii sheegay ina hebel baa wax ii sheegtay saaxiib hebel baa wax ii sheegay gruub hebel baa wax ii sheegay xisbigaasaan ka tirsanaa war waxaasi ma shaqeeyo waxaas horaa loogu hoobtay xisbi hebel baan ahaa iyo maxbaa ka tirsanaa iyo kan baan ahaa iyo ugu dambayn waxaan ku soo gabagabaynayaa dulmidiid ha guulaysto maxaa yeelay dulmidiid guusha aan ku naaloonayno iyo sharafta aan ku naaloonayno dulmidiid kii ilaahay yacni uu waafajiyey buu ahaa ee yacni horseeday goobannimada ayuu ahaa war ninka la yidhaahdo mustafow mudane mustafe maxamed cumarow markaad go'aan iyo decision gaadhayso waa ugu dambayn saasaan kaga baxayaa adaa madaxweyne ah qolkaaga isku soo xidh kofeey u cab u istiqaarayso go'aanka keligaa gaadh decisionka keligaa qaado ninkaasaa madaxweyne la yidhaahdaa ninkaasaa hoggaan la yidhaahdaa ninkaasaa la yidhaahdaa nin mataqaanaa laisku aamini karo ninkaasaa la dhahaa laakiin waxaan la soo tashanayaa habarkuulay iyo ina adeerkay iyo ina abtigay iyo niman waa saaxiib ahayn iyo baan la soo tashanayaa war go'aankaaga qaado waxaa la yidhi calool adeeg waxaa weeye qofka calool adeeg waa alla wehelkii geesi ilaahay ma xila baa la yidhi go'aanka keligaa qaado qol isku soo xidh waddanka adaa madaxweyne kaa go'aamada muhimka ahoo dhan keligaa waa inay kaa soo go'do adiga ilaahay waa inay ka soo go'do nimaan keligii go'aan qaadan karaynin dee waxba ma talin karo waxba ma noqon karo kaasi nin ma aha waxba ma aha waa nothing waa zero adeeru decisionka keligaa qaado go'aanka keligaa qaado dadku laba madaxweyne kililkuma leh mustafa madaxweyne u ah war ninka $200 doonaya inuu ku shaqeeyo jigjigaa qaadan jiray hadduu ilaahay kuu roon yahay kolkay ugu yartahay sanadkii $100,000 qaadanayay kaasi miyuuna tuug ahayn kaasi miyuuna laaluush u soconin kaasi miyuuna khaa'inimo u soconin war dalka waxaa ina deeqda innaga oo soo shaqaysannay oo lacag wadanna oo fasax u tagnay oo vacation u tagnay inaynu ku raaxaysanna ina deeqda nabadgeliyo ku hellaa ina deeqda yacni ku naaloonna innagii carruuraheenna dhaqan celin aynu u geynaa ina deeqda waddankeenniyoo xor ah laakiin jigjigaan u shaqo tegi jigjigaan lacag u doonan jigjigaan u doonan qandaraas jigjigaan u doonan mataqaanaa hadduu ilaahay kuu roon yahay jago u doonan war dee jigjiga waa daabiya dadka ma qaado aga dhulka ilaahu kala shaqo taga nima yahow ninka waad wareeriseene waa maxay martidu waa maalin iyo labo hoteelada la iska bixinaya waa maalin iyo labo baabuurta la isa siinaya waa maalin iyo labo weligay allahi ma hotel baa layga bixin weligay allahi ma gaari baa laysiin war bilaahi calayka kala shaqo taga nima yahow xishooda intaa ka badan la idinma dulqaadan kare aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabta reer facebook raggii igu xidhnaan jiray raggii ijeclaa inta iga soo hor jeeda inta nin waalan ii taqaanee idhahda war kiniinkii baa ka dhammaadee kiniinka siiya dhahda in walba kulligiin waa idin soo dhowaynayaa dhammaantiin waa idin wada jeclahay aad iyo aad baan kuu jeclahay xuseen daahir waan ku magac dhabayaa adiga public baan mataqaanaa kaa magac dhabayaa my best friend xabiibkayga walaalkayga ah naftayda qaaliga ah ayaa tahay ninkaasi waa xuseen daahir maxamuud from philadelphia salaan qaaliyaan saaxiibku salaamay aad baan kuu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wabillaahi tawfiiq aad baan idin wada salaamay